runtii hadal badan u tolmoon maayo maadaama xafladdu ay aad u ballaaran tahay 500 oo arday la guddoonsiin doono shahaadooyin marka hore waxaan salaamayaa madaxda qaranka oo ay ugu horeeyaan gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Xasan iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Xoday inta kadib waxaan runtii aad u jeclaysanayaa maadaama oo laga hadlay jaamacadda waxa ka dhex jira tayada ay leedahay dadka ka baxay waxyaabaha ay qabsadeen iyagoo oo ku saleynaya aqoonta ay ka barteen jaamacadda waxa jaamacadda loo qorsheeyay oo ka hadlay gudoomiyuhu intaasba ku noqon maayo ee waxaan ka hadli doonaa oo aan ardayda taabsiin doonaa anigoo soo koobaya waxyaabihii ay ka hadleen aqoon-yahan Cabdiraxmaan oo soo bandhigay how to choose your faculty sheeko yar oo inspiration history ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo ama aan ku soo koobo waxyaabaha aan istaagay sheekadaas runtii waxay ku tusinaysaa waxyaabaha adiga ka dhex guuxaya iyo waxyaabaha dadku kula jecel yihiin sida ay kala duwan yihiin iyo ta aad wax ku noqon karayso sheekadan waxay dhex martay nin dhakhtar ah iyo oday waayeela oo aad u xanuunsanaya oo nolosha wax badan ka soo arkay laakiin se gabagabadii isagoo dhimanaya khasaaro ku sugan odaygaasi markii dhakhtarka la keenay ayaa isagoo wareysanaya isagoo uu waramaya ayaa dhakhtarkii waxa uu ku yidhi aniga waxba hayga warwarin waayo wuxuu arkay dhakhtarka oo aad u warwarsan waxaanu ka naxay xaaladdu ku sugan yahay dhakhtarkani beeshinkani odaygu wuxuu ku yidhi waxba hayga warwarin waxaan ogahay inaan dhimanayo halkan waa lay keenay laakiin ma garanayo sababta lay keenay waayo cidda keentay ma garanayo wuxuu yidhi baleeg timahayga way daateen anigu aad baan u weynahay adiguna aad baad u yar tahay wax badan baan nolosha ka soo bartay waxna waan kaaga sheegi doonaa markii aan ahaa 4 jir waxaan u haystay noloshuba inay aniga tahay duniduba inay aniga tahay dunida dhammaan arkay dadkaas way ku nool yihiin oo waxa soo cimaarada ka taagan yihiin inay aniga tahay baan u maleynayay markii aan noqday 14 jir waa marka la yiraahdo teenage qofku ku jiraayo waa markuu ugu kibirka badan yahay wuxuu yiri dunida inaan anigu maamulayo baan u arkay dunida inaan anigu maamulayo ayaan u arkay sidoo kale waxaan ku fikiray inaan ahay qofkii dunida ugu weynaa ee soo maray markii aan 21 jir noqday waxa aan damcay inaan jaamacad galo waxaan aad u danayn jiray cilmiga loo yaqaan psychology-ga markii aan siri dooro dad badan oo asxaabteeda kamid ah waxay igu yiraahdeen waxaad ku fiican tahay engineering-ka nafteeda ma dhageysan iyagaan raacay waxaan ku yiri taas baan galaya dibadana waxay doorteen engineering-kii qof kamid ah dadka igu la taliyaan engineering-ka galo muu ahayn dadka iga bixinaya fiiga qof kaliya iguma kabin in yar oo kamid ah lacagta fiiga aan bixinayo waan doortay markii aan marayay tayriyarka ama sanadkii saddexaad ee jaamacadayda waxaan ugu adkaaday wixii aan dhiganayay maxaa yeelay ma baan danayninba waxay noqotay jaamacadda inaan ka cararo jaamacaddii baan ka baxay isla dadkii igu lahaa waxaad ku fiican tahay engineering-ka waxay igu yidhaahdeen waxaad ku fiicnayd psychology-ga waa maraan khasaaray waan damqaday buu yidhi barasho kadib oo aan cilmigaygii bartay waxa aan sameeyey oo noloshaygu tidhi waar guurso dadkoo dhammina waxay igu dhaheen waxaad u baahan tahay qof xaas ah oo nolosha kula wadaaga laakiinse maan odhan yaa igu wanaagsan waa sidii la sheegayay maan odhan yaa igu wanaagsan yaan guursada waxyaaba noocaas oo kale ah qof kastaaba waxbay soo jeedinayay anna waan degdego qofun baan guursaday markii aan 6 sano qabay ayaan waxaan maalmaha ka mid ah arkay gabadhaydii ee gogoldhaaf samaynaysa su'aal baan weydiiyey maxaa kuu kalifay baan ku yidhi way dhirbaaxday ana aad baan u xanaaqay laakiin si waxba kuma jawaabin maalinkii xigay ayaan waxaan ka soo laabtay shaqada waxaan in guriga iyo cidla oo ay ka haysatay carruurtaydii ana kali baan noqday waxa ii xigay markii aan 40 jir noqday anigoo bilaabo bada waxaan shirkad la galay contract aad u weyn waxa ogaaday dhammaan intii ila family-ka ahayd iyo intii ila asxaabta ahayd maalintii xigay ayaa waxay igu yimaadeen guriga qof kastaabana waxa uu soo gudbiyay cabasho uu leeyahay dhibaatadan bay haysata waxa la igu tumay lacag wii gudihii baan waxaan ku bixiyay dhammaan lacagtii aan haysteen contract ku soo qaatay inaan wax ku fuliyo iyagoo ballanqaadii sameynaya waan soo celinaa 2 cisho kadib isbuuc kadib waxyaabo noocaas oo kale ah laakiin samaysan dhicin
shirkadii baa waxa igu xidhay 6 sano oo xariga baa la igu xukumay maadaama lacagtii kontract aan ku qaatay dhamaanteedba aan dadkii siiyay muddadii ay igu tala galeen inay ku soo celiyaan ay ku soo celin waayeen markii aan ka soo baxay xabsiga ayaan 6 sano soo dhamaystay qof ka mid ah dadkii lacagta iga qaatay maanu jeedin meel uu joogo mana aan garanayn dunida meel uu ka joogo intaas oo dhan noloshada ka mid ah waxaan sameeyay hal khaladkaasuna wuxuu ahaa inaan dhageysanayo dadka kale waxyaabaha ay soo jeedinayaan oo aan diidayay nafteedu waxa ay leedahay maanta halkan waxaan joogaa anigoo keligay ah waxaana igu lamaan nafteedu keliyata waxaad ku muuqato biiro oo arkaysaa dhaqtariyow inay aad u qurux badan tahay inaad dhageysto dadka kale asxaabtaada laakiin waxa ka xikmad badan in aad ka soo urursato talooyin dad kala duwan laakiin waxa aad u halis badan in aad diido naftaadu waxay ku farayso hadaba sheekadan haddii aan nuucdeeda ama ujeedadeeda aan soo dhaadhaco ardayda hadii jarmay ka soo baxaan sekretariyada waxyaabaha ay isweydiiyaan waxa ka mid ah halkeebaad gashaa qof kaliya too naftiisa weydiin way yartahay haddii isweydiiyaan qof kaliya too naftiisa ku yiraahdo maxaad ku fiican tahay ma jiro yaan la tashadaa ma jirto jaamacadda Togdheer University waxay aad runtii ugu dadaashay sanadkan waxaan hore waa wax strange oo hore dhici jirin in ardayda inta la soo ururiyo sekretariyada ka baxaysa loo sheego sida ay u dooran lahaayeen waxa iyagu ay ku fiican yihiin qof kasta oo bartan jooga waxa uu jecel yahay inuu mustaqbalka dhow isagu noloshiisa hagaajiyo oo isagu noloshiisa hogaamiyo laakiin haddii ay ka khaldanto barta uu ka bilaabaya waxa ay ku dhamaanaysaa meel xun Soomaalidu waxa ku maamahada biyo aad hortooda arkaysa dabadooda waa hubo barbilowga hadduu xumaado barnaamijkana uu xumaanayo hadaba jaamacadan waxa idiin soo bandhigtay barnaamij aad u qiimo badan marka laga yimaado waxyaabaha idinku yeerayso oo ah waxbarasho waxa ka horeeya waxa ay idiin fidiso oo ah life skills in noloshaada wax ka barato oo ay koob ka tahay in aad hagto barnaamijkaaga aqooneed iyo aqoontaada meesha ay ka bilaabmayso iyo meesha ay ku dhamaanayso qof kasta caawa inta gurigooda qabto wuxuu ka fikiri karaa maxaad ku wacan tahay maxaad ku qabsan kartaa marka aad ka qalin jabiso inta hadduu caawa soo helo beritoole wuxuu soo baxayaa isagoo aan raacaynin talooyinkii iyo hadallada ay soo jeediyeen dhiimanku dhinka caafimaadku wuxuu caafimaadka soo buuxiya dhinka informaatics ka soo buuxiya laakiin beritoole soo noqday idinkoon hadalkii dhiimanka tirtiray oo qof kastaaba uu doonayo wixii uu naftiisa kala soo tashaday oo ah waxa uu isagu ku haboon yahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته